markaana wararkii ugu dambeeyay xagga qasa haddii aynu eegno iyada oo maanta ay tahay maalintii lixaad ee xabajoojinta ayaa haddana dhanka Israel waxa ay sii wadaa xadgudubka ka dhanka heshiiska xabajoojinta ila caafimaad oo ku sugan isbitaalka Al-Ahli ee Qasa ayaa sheegay in laba Falastiini ah lagu dilay weerar ay ciidanka Israel ay ka geysteen xaafadda Shujaaciya dhanka kale telefishinka Al Jazeera ayaa soo sheegay in taangiyada Israel ay rasaas ku furayaan Falastiiniyiinta ku sugan tuulada Bani Suhayla iyo sidoo kale xaafadda Sheikh Nasir ee bariga Khan Yunis ciidanka Israel ayaa horay u sheegay in ay ka falceliyeen qatar kadib markii ay arkeen dad isku dayay in ay soo dhaafaan xariiqa huruudka ah ee Qasa ciidamadu waxa ay sheegeen in dadkani ay isku dayayeen in ay u soo dhawaadaan ciidamadooda inkastoo oo lagu riday rasaas digniin ah sida hadalka ay u dhigeen isla wararkan ciidamada Israel ayaa waxa ay xireen 15 qof oo Falastiiniyiin ah waxaana 15 qof lagu xiray waqooyi bari Rafah lama oga sababta dadkaasi ay u wateen ciidamada Israel war kale oo arrimahan la xiriira qasane ee iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa waxa ay sheegeen in ololaha socda ee amniga Qasa uu yahay baahi qaran oo lagu ilaalinayo nabadda iyo nidaamka guud bayaan wadajir ah ayaa waxa ay ku sheegeen in qoysaska ay ka codsanayaan inay ka ilaaliyaan carruurtooda falalka sharci darrada ah iyagoo carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay oo ololahan looga baahan yahay in la taageero oo si qaran loo taageero si ballaaran dhanka kalena Israel haddii aynu eegno taliyaha ciidanka Israel iyo Samir ayaa hanjabaad waxa u jeediyay xarakada iska caabinta Islaamiga ee Hamas isagoo yiri ma ogolaan doono waxan jabaad ah gacanta waxaanu ku haynaa rishada qoriga aynu u diyaarin yihiin taangiyada iyo diyaaradaha dagaalka isla wararka Israelna ciidanka Israel ayaa waxa ay sheegeen in baaritaanada lagu sameeyay meydka afraad ee Hamas ay ku wareejisay xalay uu muujiyay in uusan ahayn mid ka mid ah maxaabiista Israel kadib markii la xaqiijiyay aqoonsiga saddexda kale oo mid ka mid ah maxaabiista Israel kamid ah xubnahaasi ee halkaasi la geeyay ciidanku waxa uu ugu baaqay Hamas in ay dadaal dheeraad ah ay ku bixiso soo celinta meydadka maxaabiista ee Israel xafiiska ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxa uu soo saaray bayaan ku baaqaya in Hamas ay u hoggaansanaato ballanqaadyadii ay siisay dhexdhexaadiyaasha ayna soo celiso dhammaan dadka la afduubtay ee dhintay bayaanka ayaa waxa lagu daray in Israel iyo adeegyada samata bixintu ay ka go'an tahay soo celinta meydadka dhammaan dadkooda la afduubtay si loogu aaso dhulkooda hooyo waa hagaag daawadayaal haatan waxaynu soo gaarnay xubinta ugu dambeysay ee barnaamijka xubinta falanqaynta taasi oo alaaba ku soo qaadano xogaha iyo warbixinada ay bixiyaan qubarada arrimaha militariga kuwa istiraatiijiyada ciidamada siyaasadda iyo waliba sirdoonka sidoo kale waxaan ka marnayn xubintan oo aan ku soo qaadanaa kuwa ay qaadadhigayaan warbaahinta caalamka kuwooda ugu waaweyn oo warbaahintu ay falanqaynayso xubinta maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa iyadoo ay taagan tahay xiisadda u dhaxaysa Iran iyo Israel oo Mareykanka garabsanaysa isla markaasina laga cabsi qabo dagaal dambe oo dhaxmara dhinacyadaasi ayaa waxa soo baxaysa faahfaahinta iyo macluumaadka la qariyay ee qasaaraha Israel ka soo gaaray dagaalkii bishii June dhaxmaray Tehran iyo Tel Aviv bayaan uu sameeyay ama baaritaan uu sameeyay raaxdee wargeys siraha suuqfa ayaa waxa uu shaaca ka qaaday xarun qarsoodi ah oo ku taala magaalada Tel Aviv oo ay wadajir u isticmaalaan Mareykanka iyo Israel oo la duqeeyay xogta ayaa waxa ay shaaca ka qaaday arrimo yaab leh oo la xiriira xarunta goobta laga dhisay iyo sidoo kale sida loo adkeeyay ammaankeeda warbixin arrimahan ku aadan waxa soo jeedinaysa wariyahayaga Nimca Cabdikariin Timcade shabakada wararka The Grayson ee Mareykanka ka soo baxday ayaa daabacday warbixin baaritaan ah oo shaaca ka qaaday aqoonsiga kayd ciidan oo qarsoon oo Israel leedahay isla markaana loo yaqaano goobta 81 taasi oo ah talis isgaarsiineed oo ay si wada jir ah u maamulaan Mareykanka iyo Israel isla markaana lagu dhisay qaybta hoose ee mid ka mid ah dhismayaasha dabaqyada ah ee ku yaala xaafad ciriiri ah oo dhacda waqooyiga Tel Aviv
warbixintu waxay sheegtay in Iiraan ay bartilmaameysatay goobtan 13kii bishii Juun ee sanadkan intii lagu guda jiray dagaalkii 12 maalmood socday ay la galeen Israel iyadoo xilligaasina duqeysay goobo badan oo xasaasi ah oo ku yaala gudaha Tel Aviv. xakameyn adag sida lagu sheegay warbixinta dhismaha dabaqa ee loo yaqaan Davanji waxa leelay gantaalka Iiraaniyiinta waxa uu si toos ah ugu yaala dusha sare ee goobta ciidan ee qarsoon isla markaana waxa uu u dhow yahay laba dhisme oo ah kuwa ciidamada cirka ee Israel. Dukumeenti meel la soo daayay ayaa muujinaya in goobtaasi ay tahay xarun sirdoon oo si magnetic ah loo difaacay. Magnetic waxa loo jeedaa in goobtaasi laga ilaaliyo faragelinta iyo ogaanshiyaha koronto sida hirarka raadiyaha ama calaamadaha raadaarka iyo kuwa sirdoonka. Waxaana goobtaasi si wadajir ah u maamula militariga Mareykanka iyo kuwa Israel. Warbixintu waxay sheegtay in markii goobtaasi la duqeeyay mas'uuliyiinta Israel ay si degdeg ah u xireen aagaasi una diideen suxufiyiinta inay sawirro ka qaadaan. waxaana suxufiyiintaasi ku jirtay gabar wariye ah oo ka tirsaneyd telefishinka Fox News ee Mareykanka laga leeyahay taasi oo si xoog ah looga saaray goobta. Israel ayaa si adag u xanibta macluumaadka goobaha ay ciidamadu ku dhex leeyihiin deegaanada rayidka iyadoo dhanka kalena ku eedeysa kooxaha ka soo horjeeda gaar ahaan xogaga iska caabinta ee Gaza inay ku dhex dhuumanayaan rayidka sida lagu xusay warbixinta. qoraaga baarida sameeyay lagu magacaabo Jack Bolson ayaa sheegay mashruuca ballaarinta goobta 81 ilaa 6000 oo mitir oo laba jibaaran lagu xusay dukumeentiyada dowladda Mareykanka ay leedahay oo la daabacay sanadkii 2013 balse goobta dhabta ah aan la aqoon ilaa iyo hadda. Jack Bolson waxa uu hore uga shaqeyn jiray waaxda sirdoonka macmalka ah ee shirkadda Google waxaana uu iscasilay isagoo ka soo horjeeda siyaasadda xuquuqda aadanaha. sidoo kale waxa uu hore u ahaa barakaaliye oo jaamacadaha Stanford iyo Turkiya technology aha isaguna ku takhasusay xisaabta iyo engineering computerka. sidee hadaba lagu helay goobtan? Jack iyo kooxdiisu waxay awood u yeesheen inay goobta helaan kadib markii ay falanqeeyeen sawir 2013 uu qaaday ciidanka injineeriyadda Mareykanka kaasi oo muujinayay tijaabo lagu sameeyay qolka shubka iyo biraha ee dhismaha goobta. sawirkaasi ayaa la arkay in uu la mid yahay aaga uu hadda ku yaalo dabaqa Davanji Tower ee gudaha Tel Aviv waxaana uu si sax ah ugu ekaaday muuqaalada laga arkay Google Mapka. warbixintu waxay intaasi ku dartay in shirkadda Google aysan ku dhaqmin xayiraad digital ah oo Israel ka faa'iideysanayso balse qariidadaha yandiga ee Ruushka ayaa gabi ahaanba tirtiray sawirada dhismayaasha iyo xogtooda. warbixintu waxay daha ka qaaday in goobtaasi aysan ka fogeyn 100 mitir oo mayl oo ay ku taalo goob ay ku ciyaaraan caruurta iyo xarun bulsho oo la furay sanadkii 2023 taasi oo macnaheedu yahay in Israel ay ka dhisatay xarun ciidan oo qarsoon oo muhiim ah bartamaha xaafad aad u ciriiri ah taasi oo sida ay warbixintu sheegtay cadeyn u ah siyaasadda adeegsiga rayidka sidii gaashaan bini'aadantinimo. dukumeenti la soo daayay warbixintu waxay shaacisay email la diray sanadkii 2015 oo ay wadaageen taliyihii hore ee gaashaanbuurta NATO James Stavridis iyo taliyihii hore ee ciidamada Israel Gabi Ashkenazi kaasi oo taliyihii hore ee NATO ku sheegay in uu u shaqeynayay shirkad Mareykan ah oo ku guuleysatay qandaraas weyn oo lagu dhisayo shabakad talisiya isgaarsiin oo lagu hirgelinayo goobta 81 oo la shaqeynaysa ciidanka Israel. sida lagu sheegay warbixinta dhismayaasha ku hareeraysan xaruntaasi waxay hooy u ahaayeen shirkado tiknoolajiyadeed oo xiriir la leh sirdoonka Israel. isla warbixintaasi ayaa lagu xusay badigooda shirkadahaasi ay ka qayb qaateen horumarinta nidaam sirdoonka macmalka ah oo lagu bartilmaameedsanayo Falastiiniyiinta halka shirkadda amniga internetka ay ku taalo meel u dhow isla goobta.